marka waxaan aad ugu ducaynayaa wadadan dadkii sameeyey kuwii mataqaanaa ka qayb qaatay urkiyo qalbiga haddii aadan ku ol ubaxiyo jacayl kula maansuge eelkaada wadnaha ku abuurtay baan abid iga bogson nafku aaminka sida eeri dhaban day wayday olol waxaanu maraynaa Silaanya Road hadda waxaanu soo dhaafnay tuulo la yiraahdo barkada Cali Xirsi iminkana waxa naga horeysa tuurka dabadna shiisha kadibna waxa ku xigta Garaadag wadadan aad arkaysaan iminka oo wadadii Silaanya Road cirgaaba tageysay ma sha Allah dhamaanteen horta waa jecel lahay horumarka wadanka in iskuulo hospitaalo wadooyin iyo dhamaan baahida bulshada wadanka laga hirgeliyo waayo waa sida kaliya ee horumar lagu gaari karo wadadan oo kale marka aad aragto ayaa runtii farxad iyo mataqaana dhiirigelin ayay ku galaysaa si aad wadanka u timaado adna wax uga qabsato waayo marka aad aragto horumar wadanka ka socda adna waxaad ku daysaa inaad timaado wadanka marka aan arko wadooyin sidan oo kale oo la sameeyay aad ayaan ugu duceeyaa wixii dadkii sameeyay iyo qof allaale qofkii ku lug lahaaba $1 ha noqotee ya waayo haddii aan wadadan la samaynin dee imay suurta gasheen inaan ku imaado gaarigan yar aan ku socdo ilaa ceer gaabo marka aad baan ugu duceeyaa runtii wixii wadadan hirgeliyay wixii ku shaqo lahaa dadkii sameeyay iyo dhammaan dadkii mataqaanaa $1 ha noqotee wax ku lahaa waa wadada ugu dheer ee ay dad Soomaali ahi kartidooda iyo maalkooda ku dhisteen dad shisheeye ah ama dawlad ajnabi ahi aanay $1 ku caawin wadadan oo dheerarkeedu yahay 275 kilomitir waxay ka bilaabataa Inaaf Madoobe waxayna ku dhamaataa Ceeri Gaabo mar haddii wado aad u fiican oo ku dhow 300 kilomitir la dhistay taasi waxay ku tusaysaa haddii la iskaashado oo wax la wada qabsado in wax kasta ay macquul yihiin wadanka horumarkiisa aynu inaga ku filannahay caawimo dibad inooga timaada iyo baryo aynu ka maarmi karno wadadan ka hor intii aan la samayn waxay gawaarida iyo dadka u kala safra Burco ilaa Ceeri Gaabo la kulmi jireen dhibaato aad u fara badan khaas ahaan xilliyada roobabka taas oo keeni jirtay in uu gaarigu u kala socdo Burco ilaa Ceeri Gaabo 2 habeen iyo maalin maanta se waa mahad Ilaahay in aan salaadii duhur ku soo tukado Burco tii maqribkiina aan ku tukado Ceeri Gaabo gobolka Sanaag waa gobolka ugu baaxadda weyn ugu khayraadka badan uguna qurux badan wadankeena hodanka ah waa gobol Ilaahay ku manaystay khayraad badan oo dabiici ah sida beeyada oo ay ka mid yihiin maxorka maydiga malmalka togag qaar macaan yihiin qaar qaraar yihiin qaar kuleyl yihiin qaarna qabow yihiin beerihii boorihii xeebihii didibkii banan aad u ballaaran iyo xoolihii in wado wacan oo ku xidha wadanka intiisa kale loo sameeyo waa mahad Ilaahay wadadan ayaa inoo hirgelisay in aan gaari soo qaato Burco oo aan ku imaado Ceeri Gaabo kadibna aan idin soo duubo quruxda gobolka Sanaag urkiyo qalbiga haddii aadan ku ol ubaxiyo jacayl kula maansuge urkiyo qalbiga haddii aadan ku ol ubaxiyo jacayl kula maansuge eelkaada wadnaha ku abuurtay baan abid iga bogson nafku aaminka sida eeri dhaban day wayday olol eelkaada wadnaha ku abuurtay baan abid iga bogson nafku aaminka sida eeri dhaban day wayday olol aragiisa kaan ku ilgoogsado aragiisa kaan ku ilgoogsado amaniya ducaba waan istaahishaa inaan ku tursheeya tinkuwa aragiisa kaan ku ilgoogsado
Thank you. way mahadsan yihiin ilaahay baa mahad leh hooyooyinkii dibadda ku iibinayay tamaadhada ee sadaqada ku darsaday wadadan. Thank you. ardaydiina saacahoodii biiriyay si ay qayb uga qaataan dhisitaanka wadadan. Thank you. ninkii xamaalka ahaa ee ku dadaalay horumarka wadankiisa. dhammaantiin ilaahay ajar khayr qabaha idinka siiyo. haddii ay idin dadaal muujiseen maanta burco ilaa ceerigaabo kuma tageen 6 saacadood oo kaliya. أماني يا دعابة دعابة دعابة